dhirta waa Xuseen Muudey oo dhirta lagu iibiyo guryaha ku wareejinaya wadooyinka magaalada Muqdisho oo suuq u ah 3 bilood ee u dambeysay. Xuseen oo degan degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose subax kasta ayuu u soo safraa Muqdisho halkaas uu u iib keeno dhir uu ka soo guro beer uu leeyahay. waa aabaha 4 caruur ah oo kan ugu weyn 13 jir yahay. waxa uu shaqadan ku maareeyaa nolosha qoyskiisa iyo waxbarashada 3 caruurtiisa oo iskuul iyo dugsi Qur'aan dhigta. mid kasta ayuu ka bixiyaa $10. ka hor inta uusan ganacsigan ka bilaabin Muqdisho waxa uu muddo 7 sano ah dhirtu ku iibinayay degmada Afgooye oo qani ku ah beeraha iyo dalagyada kala duwan. Xuseen ayaa sheegay in dhirtan baahi badan loo qabin Afgooye laakiin Muqdisho loo baahan yahay sidaasna ay suuq ugu noqotay. afgooy waxaan u soo roon macna magaalo weyn oo isbixiyo ilmo iskool aan ku bixi karo oo dugsi aan ku bixi karo ma sidiisa magaalada macna Muqdisho oo soo wareegta caasimad weyn waay saasan u maadad Muqdisho ilaa afgooy hadii joo ilmo iskool ma ka dhiibi kari ana macna qaatibay hun guriga ku jirbo sababta macna afgooy beerheeda iska badan macna beer iyo geedahan loo baahan ma ah ilaa Muqdisho geedahan si fiican loo baahan yahay shacabka u baahan. Xuseen oo caruurtiisa iskuulka geeyay bishii koowaad ee sanadkan waxa ku adkaatay bixinta lacagta waxbarashada wuxuuna sheegay in taasi ay meesha ka baxday hadda oo dhaqaale fiican ka helo ganacsigan. waxa uu Radio Ergo u sheegay maalintii in uu helo lacag u dhaxaysa $10 ilaa $30 isagoo u kala qeybiya 3 meelood taa oo ugu talagalay maareynta dhaqaalihiisa. waxaan maareynaa ilmaheeya ina bishood aan ku dhiibo oo biilkan aan ka baxsado beertan walaal aan ku celiyo 3 qeyb aan u dhigaa 3 qeyb aan u galiyaa ani ilmaan oo ku bishta iyo bishood ma ka dhiiba geedana ku celinaa. beerta oo dhirta ka soo guro ayuu sheegay inuu isaga leeyahay waxaana marka uu geedaha uu ka soo guro ku ridaa bac iyo dhoobo si uusan dhaawac u gaarin talaalka hoose ee geedka. Afgooye oo 30 kiiloomitir u jirta magaalada Muqdisho ayaa waxay caan ku tahay beero waaweyn ah kuwaas oo soo saara qudaar iyo dhirta la beerto. wuxuu sheegay Xuseen in ay wax badan iska bedeleen qiimaha geedaha uu gado iyo tirada intaba. halkii geed ayuu tan iyo markii uu Muqdisho u soo wareegay gadaa $2 ilaa $3 halka markii hore uu Afgooye ku gadi jiray laga siin jiray $0.5. tan iyo markii uu bilaabay inuu ka ganacsado caasimadda Xuseen wuxuu kor u qaaday beeridda geedaha isagoo beera xilliyada uu gurigiisa joogo. Halin imaad horta aniga 3 bilood Muqdisho aan ka shaqeeyay waa isbixiyo alxamdulillah ilma macna waxood ma iga seeray hooy isbedel fiicnan arka alxamdulillah 3 bilood macna isbixis weyn aan ku arka alxamdulillah ganacsiga iyo socod alxamdulillah geedan oo ii gadmooyin 3 bilood adi macna ilmaha waxtood iska bixiyo alxamdulillah macna bishood iska dhiibo ka sokow in uu ka helo nolol maalmeedkiisa. Xuseen wuxuu aaminsan yahay in uu ka qayb qaato bilicda iyo dib u cagaarinta magaalada Muqdisho. wuxuu raaciyaa adeeg dheeraad ah oo ah in uu dhirta qofkii ka iibsada uu u soo talaalo laakiin tira cayiman. waxay u leedahay dhirtaan macna umad iyo waxadan uroonta macna guruga xarakadiisa uroonta dawlooyinka soo saarta guruun walba beera guriga soo saarna xarakadiisa iyo nidaamkiisa hadda qontan asqaato oo 6 u qaato waraca waa soo beera hadda ninka 2 xabba 3 xabba 10 xabba asqaato waqtigaas maracay asoo ku filan waxaad u soo surunay. Maxamed Ibrahim Bulbul Radio Ergo Muqdisho.